magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaa maalintii shalay ahayd laga daafuray tartan ciyaareed loogu talagalay xuska maalinta loo asteeyay dhalinyarada Somaliland oo sanad walba 20 February laga xuso Somaliland waxaana tartan ciyaareedkani daafuray wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland iyo hay'adda maxalliga ah ee Afyoko oo inta badan ka shaqeysa arrimaha bulshada ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee gobolka Togdheer Kayse Yusuf Cilmi waxaanu faahfaahin ka bixiyay muhiimadda ay leedahay xoojinta isdhexgalka dhalinyarada. Ilaahay mahadi weeyaan maanta waa maalintii xuska dhalinyarada oo noo qabsoomtay ciyaar aad iyo aad u qiimo badan. Laba naadi ayaa ciyaaraya. Waxaan halka ugu mahad celinayaa marka hore ururka la yiraahdo Afyoko iyo wasaaradda ciyaaraha oo soo kaashaday Afyoko oo mar walba dhiirigelinta dhalinyarada iyo qaranka Somaliland ba aad iyo aad shaqadeedii hawsheeda mar walba gudata. Xuskan aan ugu talagalnay 20kan sanad guurada ah waxaan uga jeednaa dhibaatooyinkii Soomaaliya ku sameyn jirtay dhalinyarada maanta ma taalo maanta waxaan haysanaa xurmiyad baan haysanaa nabadgelyo haysanaa taa waxaan uga sii dhiidhiyeynaa aan ugu talagalnay dhibaatadii haysatay iyo xasuuqiina haystay iyo xarigiina haystay iyo banaabixii aan ka banaabaxaynay xuskan maanta dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa qaranka Somaliland meel kasta aad joogtaan maanta waxaan haysanaa nabadgelyo waxaan haysanaa nolol wacan maanta madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waad aragtaan 1500 oo dhalinyaro ah ayaa shaqo abuur loo sameeyay oo shaqo qaran loo sameeyay waxaan leeyahay qaranka Somaliland maanta kuwii bedelayay baa tiin wasiir noqonayay maayar noqonayay badhsaabi noqonayay xildhibaan noqonayay waxaan leeyahay meel kasta qaranka Somaliland ka joogtaan garab iyo gaashaan waa in isku noqotaan. Dhanka kalena waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyay Mukhtaar Cismaan Jaamac oo ah mas'uul ka socday hay'adda maxalliga ah ee Afyoko waxaanu iftiimiyay sida hay'adda Afyoko ay dhalinyarada ula garab taagan tahay dhiirigelinta iyo taageerada dhanka sportiska. wali waxaan ku guda jirnaa xuska munaasabadii maalinta dhalinyarada Somaliland ee loo asteeyay 20ka February dabaaldegan wuxuu ka soo bilaabmay arooriyadii saaka waxa noo qabsoontay munaasabad ballaaran oo anagu haddana nahay hay'adda Afyoko iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer aan isku kaashanaynay iminkana waxaan u fadhinaa ama aan ku guda jirnaa ciyaartii kulan ciyaareed saaxiibtinimo oo qayb ka ah munaasabadii saaka ama dabaaldega maalinta dhalinyarada waa kulan saaxiibtinimo si saaxiibtinimo ah oo kalgacal iyo hambaliyo ku jirto ay dhalinyaradu wada ciyaarayaan. dhalinyarada Somaliland waxaan leeyahay hambaliyo meel kasta ay joogtaan. Afyokana maadaama ay yihiin hay'ad dhalinyaro aadna uga shaqeeya dhiirigelinta dhalinyarada sharaf weyn bay runtii noo tahay inaan maanta aanu ku naaloono nabad iyo farxad sidoo kalena aanu qayb ka noqono barnaamijyada lagu dhiirigelinayo dhalinyarada. Shucayb Xasan Cismaan Shucayb Kingish Kalsan TV magaalada Burco.